السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما قيرت يوتيوب سلامي عشركنا waxaan ku saabsan yahay sidaan ula soo degi lahayn Windows 10 isugu jiro 32 bit iyo 64 bit. Welcome my YouTube channel. marka faylka sidaan ay kugu soo degayaa waana 5GB 93 waana isugu jira home iyo professional iyo enterprise saddex windows isugu jira mid kaartan ku shuba kartaa. linkigana waa linki marka la soo degaysid waa 7 baartay waana xayisiin markaasna xayisiintaas la'aanteed ma soo degsan kartid. kan waa uTorontiga kan marka fiirino right kaliya leedahay kadibna copy ayaa leedahay kadib uTorontiga fur kadibna add Toronto linki ka dooro URL-kaaga kadib markaa ku dhifatid si automatically copy asaaba soo qaaday hoostaa kadibna waxa leedahay okay kadib markaa okay dhaadid wuxuu bilaabaa wax yar kadib inuu raadiyo oo jeeda calaamada wareegsanaysa kadib markii wareegga dhameeyo wuxuu ku soo saaraa Windows 10 oo ISO ah 64 bit and 4.98 waaye kadibna okay ayaa leedahay kadibna wuxuu bilaabaa inuu ku dhalangaliyo. marka uTorrent wuxuu ku fiican yahay waqti badan ha qaata laakiin waa sugi kartaa marka iska soo xirno. marka aan fiirino marka linkigan copy dheh marka copy dhaadid browserka fur kadib right click dheh paste dheh kadibna enter dheh. marka enter dhaadid haddii aad isticmaalaysid adblock plus-ka wuxuu ku leeyahay website-kan xayisiinta inaad daawato waa qasab iska xir adblock plus-ka kadibna waxaa leedahay display on this website-kan ka xir kadibna refresh dheh ama F5 kadib markaa dhaadid wuxuu ku ogolaanaa markaan refresh markaa dhaadid in xayisiin badan la kulantid kadibna free ayaa ku dhufanaysaa. marka free ku dhufatid wax yar ayaa ka sugaysaa kadibna linkiyo badan ku soo baxay dhimar waa iska xiraysaa ku qasbanta kulli waxa soo linki oo dhan ilan adiga iska xirta qaybta xayisiinta. marka waxa leedahay free download ayaad ku dhufanaysaa kadib marka free download ku dhufatid hoos ayaa imanaysaa code-kana ku dhufanay 262 marka gelinaysid linkiga ku dhufatid xayisiin ayaa ku soo baxay iska soo xir xayisiintaas oo dhan kadibna ku laab hadana kadibna code-ka geli 262 kadibna inta second ayaa sugaysaa kadibna waxa leedahay download file ayaa leedahay waxay rasugaysaa kadibna waa ka download file ku soo baxday ku dhufo haddana linkii badan ku soo baxayaan kadibna iska xir kadibna meeshaas blog ayaa waxa ka dooranaysaa iska soo xirkan downloadka ku soo waxa ujeedaa oo ah 956 MB 64 kilobyte macna dhimala aad todoba bartaas u soo degsan kadib download aad leedahay download manager-ka aad u isticmaal internet-ka fast yahay sida uu dhaqsiya badan ay kugu soo degaya adigu isku 5GB isku dar iska soo xir waxaan oo dhan sidan ay kugu soo baxaa. marka right click dheh new folder aan leeyahay kadibna waxa leeyahay Windows 10 ayaan u bixinaa kadibna drag ayaan ku sameynaa waa sababta hadaan desktop-ka ku dhaxdhaho faylasha banaanka ku daadinaa laakiin right click inta ku leeyahay kadibna extract iyo kadib sidan kugu dhameeyo waxa ku soo baxayo 32 bit waa ka iyo 64 bit labadooda kaarta dooran kartaa laakiin si automatic ah marka doorashada afkan ada 6 gal fiiri 6 waa sidaan isugu jira waa 4 window 6 kaliya isugu jiro marka galno 86 waa 32 bit ka asina 4 window ay isugu jira oo 32 bit marka sadafka marka furtid sidaan ayaa kugu soo baxaya kadibna open dheh kadib wax yar sugaysaa window loading ayuu sameynayaa kadibna ujeedaa inuu prepare sameynayo marka insha Allah uu shaqeynaa wuxuu isugu jira window-gan waxa waay enterprise professional iyo home asoo 32 bit iyo 64 bit ana 32 bit waa 4 waa 3 no 64 bit waa 3 no marka no iska dheh kadibna next dheh kan waa tijaabo laakiin caashii ku xig insha Allah bina kareem sidan ugu shubaleen ayaan isticmaalina anagu isticmaalino VMware workstation 10 ayaa loo isticmaalay kaliya 32 bit ka 11 iyo 12 waxaa loo isticmaalaa marka casharaan iska soo xir insha Allah bina kareem marka workstation markaan ku shubanaya si fiican ayaa u arkaysaa insha Allah bina kareem marka waa casharo fudud loogu talagalay ardayda bilowga insha Allah inay ka faa'iideystaan. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh wa jazaakumullahu khairan.